xaflad uu soo qaban qaabiyay ururka nabadda iyo horumarinta wadamada waqooyiga Yurub ayaa lagu qabtay wadanka Finland waxaana ujeedadoodu ahayd soo dhaweynta ex xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed iyo sidoo kale gabar Soomaaliyeed oo ka qalin jabisay jaamacadaha ugu sarreeya dalkaasi Mareykanka ee Harvard University Marwo Faadumo Dayib. Haddaba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi Marwo Nimco Maxamed Nuur waxaana hadaladii halkaasi ay ka jeedisay iyada iyo xubnihii ka qayb galay kulankaasi kamid ahaa sidatan. maanta ujeedadeena waxay ahayd koowaad in aan ku soo dhaweyno walaal Cabdiraxmaan iyo maaragtay inaan iska wareysano arrimaheena. ujeedada labaad waxay ahayd inaan u hambalyeeyno walaasheen Faadumo Dayib oo iyadana aan ugu hambalyeynayno guusha ay ka gaartay nolosheeda iyo heerkeeda aqooneed. intaas kadib waxaan rajaynayaa in aan kulankeena ku dhameysano farxad iyo guul anagoo si gaar ah u xuseyno soo dhaweynta siyaasigeena Cabdiraxmaan qorshaheena iyo maaragtay hadafkeena uu ahaa in aan arrimaha uu isagu noogu xeel dheer yahay noogana aqoon badan yahay uu noo soo gudbiyo. soo dhaweynaa ex xildhibaan Cabdiraxmaan iyo xafladda gabadha Soomaaliyeed oo lagu hambalyeeyna shirkaas soo qaybgalkiisa aad ayaa lagu mahadceliyay ka soo qayb galay. waxaa halkan martida Finland joogta ama dadkeena ahlu beledka ah oo wadankan jooga ka soo waxaa marti inooga ah xildhibaan hore Cabdiraxmaan Macalin Cali oo ku magac dheer Faax. waxaan ku mahadcelinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee Finland ee sameeyay xafladan quruxda badan leh kulanka quruxda badan leh. waxaan rabaa inaan wax ka taabto arrimaha Soomaaliya ee xaaladda ay ku sugan tahay. sida la socotiin Soomaaliya waxaa laga sameeyay dawlad federaal ah ee ku gaar ahayn oo dawlad rasmi ah oo madaxweynuhu yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ilaa la ka noqdo. ayadoo ay saas tahay ayaa haddana waxaad ogtihiin dawladda waxay leedahay cadow gudaha ah iyo mid dibadda ah hiilo qurba joog ah hiilo gudaha ku jiro inay isugu tagaano ay u heliyaan dawladda u baahan yihiin. dawladda marka waxyaabaha loogu helinaayo waxaa ka mid ah in cadowgaas laga ilaaliyo. waxaa kaloo ka mid ah in la saxa qurba joogta Soomaaliyeed gaar ahaan Finland oo aan ku faraxsanahay sidaas isku duubantihiin maaragtay maskaxdiina iyo hawshiina aad ku jirtaan aan ogahay waxay ka tari karto. waxaa fiican dawladda in loo heliyo waxay qaladana la saxa waxay ku saxan tahay lagu taageero. waxaan u hambalyeeyaa horta gabadha jaamacadda Harvard gabadhaas baan horta u hambalyeeyaa. Harvard oo ah dadka ka qalin jabiya waa dadka hogaamiyaha caalamka ah. marka waxaan rajaynayaa meesha laga hadlayo Soomaaliya oo bahadaleenka noqotay inay madaxdu noqoto. ex xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin ayaa waxa uu gudoonsiiyay hadiyad ay soo wakiisheen gabdhaha jaaliyadda reer Finland Doctoreso Faadumo Dayib isagoo sidoo kale uga mahadceliyay dadaalkii ay la timid Marwo Faadumo Dayib oo ah gabar ka qalin jabisay jaamacadda Harvard University jaamacadaha ugu heer sareeya dalkaasi Mareykanka iyadoo ku nool wadanka Finland. waxaa mar kale sharaf weyn ii ah inaan hadiyo siiyo Faadumo Dayib oo ah gabar Soomaaliyeed saan ugu sheegay ka tirsan Finland hase yeeshee nasiib u yeelatay inay PhD ku sameyso Harvard University oo ah jaamacadda ugu weyn Mareykanka oo prestigious ah. Faadumo waxaan leeyahay waad mutaysatay anigana farxad weyn ay tahay inaan maaragtay kugu soo dhaweeyo microphone-ka hadiyadan Finland ku tagaleena aan gacanta ka saaray. waxaan rabaa in aan horta nii sheego meesha maanta aan gaaray ilaaha gaarsiiyey iyo waalidkayga igu soo dadaalay oo waxay geysteen dhan ku bixiyeen waxbarashadeeda. markaan soo weynaado intaan soo gaarana oo qof xaas ah noqdana qofkii i garab taagnaay oo 23 sano ilaa hadda 24 sano ku soconaa oo maanta meesha aan gaaray igu dhiirigeliyay oo markastana i garab taagnaay waa wiilka Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Journal Helsinki Finland.